always iyo kastuumo isku sii xiranayso xeemeel u jiifaysa ilaa 40 xeemeel jiifaysa qoftaas xitaa in lugaha loo dhaqo oo mushka bixaysiin saxarakeeya dirac caana leh iyo baati oo ma aragtay gees afaara kala iyo lama tusaan igu intaan afaarahaygu waa ma tusi kariya camal hadaadan tusi karin baayay faan ma micnihiin oo tustay alaabtaada ka damqin doonto dunta siiba waqtiyada 3 maalin kadib dunta u diyaar garoobayso inay baxdo ama waa haaf dhaxdin waatana dhaxal kaama qabanayso calooshii oo hadda baby ka soo bax kuma damqayso videoga nuxurkiisa waa intaan videoga nuxurkiisa isla soo gaarnay sidoo kale qaybtan waa fariin qosayso gabdhaha ugubka ah ama babygoodii koowaad wadaan oo rabaan inay isku diyaariyaan isbitaalka ama baaga ay diyaarsadaan marka insha Allah waxaa rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iidi doontid sidoo kale waxaa jirto afaara kale idin la wadaagi doono oo ma aragtay idin tusi doono kulli wax badan ka faa'iidi doontiin gabdhaha YouTube-leyda inta badan markay baaga hospitaalka ay sharaxayaan waxay sameeyaan waxay dhahaan intaan afaarahaygu waa ma tusi kariya camal hadaadan tusi karin baayay faan ma micnihiin oo tustay alaabtaada hadaan wax ka faa'iideen waxyaabahan kale in la diyaarsana waa ognahay hadaanan wax ka faa'iideynin dhamaanteen faan ma noo tustay alaabtaada maxaa noo tustay muhiimadii maxay ahayd muhiimadii u soo bandhigtay boorsadii maxay ahayd taasna waxaa waaye su'aal jawaabteeda isweydiin mudan laakiin insha Allah ani intaasna waa idin tusay in kale to idinka markaan faa'iido in idin leedahay aad dareemayso si gabdhaha aan wali hore u dhalin oo hadda isku diyaarinayaan inay wax ka faa'iidayaan aad dareemayaan waa idin tusay insha Allah horto number 1 hadaa tahay ugub aanan horay wax u dhalin hadeer la rajeynayso bahashan ha diyaarsanin sababtoo ah adiga laguguma talagelin mana ku anfacayso always waxa ku sheegi doona wax kaaga fiican midaan aad kaga kaaftoomi kartid tan sababtaas isku leeyahay wax kale ma ahan waxaa tahay markii kuugu horeysay waxaana tahay ugub sidoo kale waa lagu toli doonaa markii lagu tolana tan kuma anfacayso waa bahal yar number 1 waxayse ku anficeenin adoo markaas oo cusub mise ugub ah dhiigaaga ma xamili karo baashan aad u yar tahay sidoo kale waxaa jirto in ay ka damqin doonto dunta siiba waqtiyada 3 maalin kadib dunta u diyaar garoobayso inay baxdo ama la bixiyo kuma anfacayso midaan way ka damqinaysaa ma fahanteen walaalahaaga wax yani la wadaagaysin in ay u faa'iideynaysin taas ma ahan ceeb tan way wada ogsoon yihiin wiil iyo gabar in maaragtay la wada maraayo sheeg qofka yaabi doono wiilka yaabi doono hadaba iska bax meeshan adima lagu talagelin hadaa yaatin hada waa adi sidii lagu dhalay walaashaan ay ku dhalayso naagtaadana ay ku dhali doonto hadaa u baahanta inay wax ka faa'iididna naagtaada xitaa u sheer garan kartaa oo xabad uu si anoo kale guriga ay ku joogto marka tan abaay adigu ma fiicno waxaa jirta hadeer ani iima dhabo laakiin waxaa jirta hadaa ugu tahay xafaayado waaweyn oo dadka waaweyn loogu talagalay sanadka hore hadeer marka Xudeyfo isku diyaarinay wiilkayga isku diyaarinay dalmadiisa ani midaas isticmaalay waa ugu wax ma dhaamin babygeygii labaad bas oo ahaa marka ugubkii aniga farqi saas u weyn nooma dhaxeenin markaas had diyaarsaday videoga idin sheegaya daayan waayo oo aniga ka bixiyay marka waxaa jirta waxaa tagi kartaa dukaamada waxaan weydiin kartaa xafaayadaha waaweyn xafaayadahaas waaweynka oo kaleeto ma aragtay xiranaysaa maalmaha ugu horeeyo yani caadi markaas waana xamili kartaa dhiigaaga micnihi waa xamili karaa sida tan oo kaleeto kuguma yaraanayso maadaama abilow times ugu tahay sidoo kale tan kuma damqinayso laakiin tan waxaa loogu talagalay naagaha dalmada macalinka ku noqdo micnihi xoogaa soo dhalay oo markaas tusaale ahaan aanan si xun loo jarjaraynin oo maaragtay aan la toltoleynin tan oo kaleeto iska anfici kartaa sababtoo ah caangari maanta uga baqayaan in uu maaragtay ka damqiyo ma jiri karto haddaan la tolin waaye haddii xataa la dhaho waa la tolaan yani 2 qodob ama 3 qodob wax weyn maaha laakiin adiga ku tashan intaas ka badan in maaragtay lagu toli doono ma fahanteen marka tan waxba kuma gasho dukaamada waaweyn tag waxaa weydiisaa xafaayadaha dadka waaweyn ku dheh bukis yar dhab iska soo siiso aad iyo aad ku anfici doonta waan u riyaaqi doontaa insha Allah sidoo kale waxaa jirto
mid kale oo aanan maaragtay kuga habooneen hadaa ugub tahay inaa xiratid ama ugub ahow ama ha ahaanin midaan hadda kuu sheegi doono taas kuguma haboono mana ku anfici karto. taas sheegaya waxaa waaye waa kastuumooyinka yaryarka zaa'idka ah taasoo kaleeto. kastuumooyinkaas saawad ogsoon inta badan waxay leeyihiin inta laastiig adag ay ka leeyihiin qaarkood waa kuwa birimada ah. laastiiggaas calooshaadi ma xamili karto way number 1 yacni caloosha way kaa damqinaysaa. sidoo kaleetana maxay ahayd haddaa ugub tahay inta kastuumadaas yariistaa soo gadatid mise soo diyaarsid baashan ku isticmaalaysaa adoo tuur lagu dhina degdeg ku tuuri doonta. idin sheegaya waa kuwaan oo kaleeto hadda waa ujeediin umaleyna waa haaf dhexdin waa tana dhexda kaama qabanayso calooshii oo hadda beebi kasoo bax kuma damqayso ilaa maalmo caloosha iska damqani waa ogtiin maaho. tanoo kaleeto ku anficayso sidoo kaleeto tanoo kaleeto ku anficayso kalarkaart waa ka dhiga kartaa. ana hadda 4 kalar oo ahaa labadan xaba iska soo qaadsan bal ahaan sidoo kaleeto waxaa jirto rajistiin suuf waa xiran kartaa laakiin ma aqaani ani ma jecli markaas anoo dhalay oo faariicaan ay ka buuxaan suufka daaya idin tusaayo kaleeto iyo afaaraan la isku xirtaa way inta waxaa waaye laastiig balaaran dhaxal kaama qabanayo. sidoo kaleeto waxaa waaye suuf ma ahan waa ku seexan kartaa xitaa habeenkii yacni dharkaagina caano ma kaaga halaabayo oo ma kaa rafaadayo adigana istiraxa u seexanaysaa oo dhib kuma qabaysid waxaan suufka waaweynka ah oo maasha allah asagiiba afaarihi kaleeto ilaahay khayrayo markaan caano kusoo biiriye suuf aa ku seexana haddaa dhahdidna kulli waa dhibaato oo maaragtay qofkii sameeyey ee u gaar tahay. marka tan aad muhiim u tahay kuwaan oo marada ayadaa kala barmaysan hadda baashana idin tusaayo kaleeto waaba taqaaniin qaarkiin qaarka aqoonina waa kana midka birimada oo kuwa marada ah saas gaartaan ka helaysaa ma fahanteen. suuqyada waa ka heli kartiin waa ka habaysan kartiin kan iyo suufkaas oo caanaha celinayo aad isugu fiican yihiin. suufka laakiin suufkan rajistiinka wato waaweynka oo fushfushka qaadara ta umush ka bixaysiin isxarakeeya dirac caano leh iyo baati oo maaragtay gees afaara kale iyo lama tusaan migo. marka surwaaladana waa idinkaga faa'iideynaa buumooyin aan dheh surwaalaha ku khafiifaba buumooyinkaana saasay idin anfacayaan. buumadan iyo maaragtay xafaayada hidaaya oo weyneed aa idin sheegaayo markaasoo kaleeto adoo ugu bax oo dhalay wallahi inaadan wax yar oo maaragtay meeshii aysan kaa damqaynin oo wax yar gurigaaga aysan u dhimaynin waxaa ku dha istiraxaaga u jiifanis. laakiin inta badan gabdhaha la jaro ama ugubka markay yacni waxyaaba ay ka cabaadayaan maxaa ka mid ah ceengeriga intaas yacni maalmood uu ku jiro waxaa waaye sarirta iska aalaan yacni wax ma qabsan karaan. waxaa leeyahay gabdhaha Soomaaliya maxay wax u qabsan karin gabdhaha Soomaaliya waa la saacid maxaa loo saacidi waa naag dhamoo la jarjaro waxaan ku dhahay sida dhar loo jarjaray oo haddana waxaan ku dhahay la toltole oo haddana ma aragtay sii xiranayso always iyo kastuumo isku sii xiranayso meel u jiifayso ilaa 40 xitaa meel ay jiifaysaa qoftaas xitaa in lugaha loo dhaqo ama musqusha la geeyo aaba waajib ma fahanteen. asxaabay videogeeni halkaan uu noogu egyahay haddii aad su-aal qabtid fadlan commentiga igula wadaag su-aalihiin hadduu bato insha allah video waa kasoo sameyn doona waan idin soo jawaabi doonaa. haddana waxaa idinkaga tegaa intaa video kan lamid ah ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo.